aan ku bilownay wasiirka batroolka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sabtidii shalay shaaciyay in uu shirkadda Coastline Exploration Ltd uu la saxiixday heshiis shidaal loogaga soo saarayo Soomaaliya. Intii hore madaxweyne xasan sheekh lagu siiyey anigana dhamaystirkeedii aan ku jirnay heshiiskana waxaa la saxiixay 15 bishan. wax la qarinayo ma jirin, haddii la qarin lahaa maanta ma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahayd waqtigoodii iyo inaan ilaaminay noqotay maanta ay noqotay. wasiirku twitterkiisa uu ku soo qoray xogtan dawladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab qoraalyo rasmi ah mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dawladda ka soo gaaray wasiirka dhinacay doontaba ha ahaatee tan uu shaaciyay haddana mas'uuliyaddeeda cid la ogeydii ma jirto. isagoo hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha oo leeyahay waa ila ogaa, taas waxba kama jiraan. madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrintaas bayaan cad bay ka soo saartay oo aad aragteen. safaaraddeena Soomaaliya Ingiriiska iyadana wax la ogeysiiyey ma jirto.